asxaabtii oo kale ah. Markaa wax maynan kala qarsan jirin. Waxaana la nooleen hooyo. Aabana waxa uu naga tagay berigii aan yareen. Markaa kadibna dib u muusan soo laaban. Hooyana waxay ahayd qof isaga mashquulsan shaqadeeda. Markaa anaa biska heen jiray inta badan gabadha yar. Sheekada tan markay nagu dhacaysana waxaan jiray 16. Gabadha walaashayna waxa ay jirtay 14. Hooyana waxay iskuursadeen ninka ka magaciisu yahay Cali. Anuu horta markii hore aad iyo aad ayaan uga xanaaqay arrinkan. Laakiin markii aan arkay ninka kan dabeecadiisa iyo waxaan ku dhahay sidoo hooyo u xushmeenayo iyo sidoo noola dhaqmayo markaa waxaan ka dhiganay sida aabbo kale. Laakiin gabadha walaashii Sahra maysan jeclayn odaygan. Ma garanayo waxay ku nacday, laakiin waxaan ku dhahay markuu fadhiyo. Fadhiga agtiis xitaa may mari jirin. Markaa anaa wax uga dooni jiray hadday qolalka wax ka rabto ama jikada oo kale. Markaa waxaan isiri aabaheed ayay ka masarsantay iska daay. Hadday la qabsato ninka kan ayadaaba caadi iska noqonayso. Maantana waxay ahayd Sahra dhalashadeedii. Waxaan noo yimid odaygii adeerkeen ahaay. Markaa ayuu Sahra ku yiri gabadheeda Sahra maanta waa dhalashadaadii. Markaa waxaan rabaa inaad suuqa ii raacdo. Waxaana kuu soo gadayaa wax allaale iyo waxaad jeceshahay. Anuu waxaan isdhahay Sahra markaa aad iyo aad ay u farxi doontaa. Laakiin waxay tiri anuu kuma raacayo hadduu walaalkay raacayni markaa guriga ayaan iska joogayaa. Markaa ayuu odaygii adeerkeen ahaay waxa uu yiri walaalka uu ku soo raaci karaa asigana waxaan u gadaynaa wax allaale iyo waxa uu rabo. Waxaan iska soo aadnay suuqii sidaan dhar uga gadano. Laakiin gabadha walaashii Sahra waxay ahayd islaan aad iyo aad u gaaban waxaan ku dhahay da'deedana waa ay ka yareed. Dharkii markii mid walba la soo qabtayna wax u gal waa aan waynay. Sahrana aad iyo aad ayay u murugootay markii ay aragtay in dhar meesha looga waayay. Anuuna meeshii ayaan iska taagnay markaa wax qanciyo waa aan waayay. Markaa ay indhahaygu waxay qabteen dukaan dhinaca geeska ku yaalo. Waxaana lagu iibinayay alaabihii qadiimiga iyo waxaan ku yiri kuwii dadka caanka ay ka dhinteen. Markaa ayaa waxaan ku yiri odayga adeerkay ahaay. Adeero bal ka waran dukaanka haddaan soo fiirino. Sidaan u wareegayna waa aan daalnay. Odaygii adeerkay ahayna waxa uu igu yiri uma maleynayo wax Sahra qanciyo inay dukaankan yaalaan markaa waxa u galeenayaa qalad ah. Sahra ayaa soo booday waxayna tiri hadduu wiilka walaalkay rabo inuu soo fiiriyo markaa waan aadaynaa ina keena. Saddexdeena wada jir ayaa waxaan soo galnay dukaankii. Markaa anuuna isla markii waxaan u soo cararay dhanka banooniga iyo waxaan ku yiri qalabka ciyaaraha lagu iibinayay. Laakiin si lama filaan ayaa waxaan ku arkay odaygii waxaan ku yiri Cali ahaay oo gabadha walaashii si xun u eegayo. Waxaan isiri talo maxaa qaldan. Islaantii walaashii ahaydna ayadana meel kale ayba ku mashquulsaneed. Waxay fiirinaysay meel armaajo ah. Armaajadana waxa ka buuxay maacuuntii waxaan ku yiri qadiimiga ahaayeen. Saxamadii faynuusyaal ayaa hoos yaaleen. Koobabka dhinacyo gees ayay yaaleen. Korna waxaa saarnaayeen garaafooyin. Waxaasoo dhan waxaaba iiga sii darnaay boombalii ay meesha ku sharxeen. Waxayna dhigeen maacuunta dhexdooda. Boombalii gabar yar laga sameeyay ayuu ahaay. Markaa waxay u soo geliyeen koofiyad yar waxaan ku yiri cambuur. Golofisna gacmaha ayaa loogu xiray. Waxayna u ekeed sida inay duug u socoto kale. Markaas ayaa waxaan dareemay gabadha walaashay inay ku mashquulsan tahay boombaliyaan yar. Way u soo dhawaatay kadibna waxay ka qaaday shabaqii yaraay. Boombaliyaan wajigeedan wuxuu ahaay wax laga naxayaan ku yiri foolxumada. Waxa isleedahay dambas miyaa loogu soo qabeeyay. Indhaheedana waxay ahaayeen indho buluug ah waxaa ka muuqda wajigeeda murugo. Markaa ayaa waxaan ku yiri gabadha walaashii adduunka haddana sida u soo socoto ma boombaliyaan foolxumada badan qaadan doontaa. Waxayna igu tiri haa waan jeclaaday boombaliyaan waa boombali aad iyo aad u qurux badan. Mana rabo inaan ka tago maanta. Anuu markaa yaab waxaan isiri gabar weyn oo 14 sano jir ah talo boombali maxay ku falaysaa. Laakiin Sahra waxay ahayd islaan macangag ah waxay ku dhigtaan waxaan ku yiri lagama fujin karin. Markii aan arkayna Sahra inay boombaliyaan si xun uga dhigtay waxaan isiri waa walaasha ka yaray markaa iska day. Waxaan u wacnay islaantii gadaysay dukaanka. Markii ay aragtay boombaliyaan qaadanay waxay dhahday lacag la'aan ayaa idinku siinayaa. Boombaliyaan dad badan ayaa qaateen markaa 2 maalin kadibna ay soo celin jireen. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin maadaama aad iga qaadateen caruusada tan waxaan ku iri intaasoo sano dukaankan iska taalay
marka hadiyad ahaan ayaa badiin siiyey. Odaygii Cali ahaana markuu arkay in caruusadan yarna lagu siiyey waxaan ku yiri lacag la'aan. Waxa uu yiri Sahro waxaan rabaa inaad ka qaadato dukaanka wax allaale iyo waxaad jeceshahay. Sahrana waxay bilowday inay caruusadii yareed dhar u soo xaabiso waxaan ku yiri midba midka kale qurux badan. Anuguna markaa waxaan soo qaatay ul uu ku ciyaari jiray nin aan taageero. Waxaan rabay subaxii markaan iskoolka aado inaan uga faano asxaabteyda. Habeenkii markii la gaarayna waxaan iska soo aaday sariirteyda. Anuguna waxaan ahay qof aad iyo aad u hurdo weyn markaa si fudud kumaan soo kici jirin. Laakiin waxaan maqlayay habeenkaa waxay ahaayeen qaylo waxaan ku yiri dhagahaygaba ka dhex bixisay. Waan u dulqaadan waayay indhihii ayaan kala furay. Qolkayga hareerihiisa ayaan eegay laakiin wax waan arki waayay haddana waxaan isiri tolo waxaas mariyay ahaayeen. Hurdadeeda ayaan isaga laabtay. Aroortii markii la gaarayna waxaan iska soo aaday dhanka jikada sidaan u quraacdo. Jikadan waxaa fadhisay islaantii Sahra ahayd. Subaxaasna odaygii adeerkeen ahaay markaa meel ayuu u kala hay. Gabadha walaasheena markuu odayga maqan yahay waxaan ku yiri si fiican ay u hadli jirtay wax walba ay ii sheegi jirtay. Laakiin markuu joogo wax may sheegi jirin. Sahra ayaa waxaan ku yiri na walaali xalay ooyinaya ma ka seexan weyne ma adaa ooynaya xalay. Waxayna igu tiri anuu ma ay dadka qaruwo markaa waxaan u maleynayaa inaad riyootay. Anuguna arrintaas waxaan isaga qaatay markaa inay riyo ahayd oo kale. Quraacdi markii aan dhamaysanayna waxaan iska soo aaday qolkayga sidaan isaga ciyaaro game. Gabadhi walaashay ahaydna waxay iska fadhiisatay qolkii fadhiga. Waxay rabtay filmaani waxayna iska daawato maadaama uu adeer maqan yahay maanta. Anoo qolkayga u sii socdo ayaa waxaan arkay qolka Sahro oo iska furan. Markaa gurigeena kaneecooyin iyo adduun ayaaba ka buuxeen. Waxaan isiri markaa way hilmaamtay. Laakiin waxa yaabkii iga dhameeyay waxaan arkay caruusadii Sahra oo waxaan ku yiri indhaheeda dhiig ka da'ayaan. Waxaana ka muuqatay murug aad iyo aad u fara badan. Albaabkii ayaan u soo xiray waxaan iska soo aaday qolkayga sidaan geemka isaga ciyaaro. Caruusadii yareedna maskaxdeedu waa ay ka bixi weyday. Waa aan yaabay waxaan isiri tolo maxay dhiiga ka socday. Marka ayaa waxaan isiri iska daa Sahra ayaa makeup iyo wax u marisaan u maleynayaa. Habeenkii ayaa waxaan iska soo aaday sariirteyda. Laakiin anoo hurday ayaa waxaan maqlay isla waxaan ku yiri ooyintii. Waan habeenkii dhaweyd ka seexan waayay. Laakiin cawad waxaa iigu sii darneed waxaan ku yiri culays lagu hidhan. Indhihii markii aan kala qaadayna waxaan ka war helay caruusadii Sahra oo waxaan ku yiri lugahayga dhex fadhiso. aad iyo aad ayay u oynaysay indhaheedana waxaa ka qulqulaya dhiig. Anuguna markaa waan isku naxay caruusadin waxaan ka tuuray sariirta. Waxay bilowday inay cararto. Albaabkii ayay si xun u furtay. Anuguna markaa ciil ayay hayay. Waxaan hore u soo qaatay ushii uu ii soo gaday odaygii adeerkay ahaay. Habeenkana waxay ii qorshaysnayd inaan la duldhaco ciilkaygii caradayda waxaan ku yiri caruusadan xun. Anoo isla caruusadii gacanta ayaaba ku dhigtay ayaa waxaan arkay iyadoo si cararaysa dhanka ay qolka walaashayda. Qolkii ayaan ka soo dabagalay waliba anoo xanaaqsan. Waxaan yiri cawadu wax walba igu qaadato cid iga ka celin karaysa malahan. Waxaan isri bombali xuma gacanta ayaaba ku dhigtay. Marka ay indhahaygu waxay qabteen waxaan ku yiri inta cimrigayga ka dhimanaan hilmaami doonin. Waxaan arkay odaygii Cali ahaa oo fadhiya gabadha walaashii sariirteeda. Markaana waxa uu damacsanaa inuu wax xun ku sameeyo. Laakiin markuu arkay inaan qolka ku jiro aad iyo aad ayuu isugu naxay. Anuguna indhihii ayaa banaanka yimaadeen. Waxaan noqday sida qof waalan oo kale. Waxaan ku yiri waxaan sameynay xitaa maan ogeyn. Odaygiina meeshii ayaan nafta kaga qaaday. Hooyo ayaan wacay gurigii ayayna timaaday. Sahrana markii aragtay dhiigii waxaan ku yiri ninkii oo dhulka yaalo aad iyo aad ayay u walwashay. Waan u sharaxnay wixii meesha ka dhacay. Markaa kadib ayaa waxaan u yeernay booliiska. Booliiska markay yimaadeen waxaan isdhahayay waa lagu xiri doonaa maanta. Laakiin marka ay dhaheen shaqo fiican ayaaba qabatay. Ninka xunkana waxaan ku yiri abaalkiisa ayaa marsiisay. Aniga family-gaygana markaa wixii ka dambeeyay guriga waa aan ka guurnay. Caruusadii yareedna waxaan ka dhiganay sidii cunug yar oo kale.